بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan waa kanaalkeenii afqalad aqoonta miyaa qeybtan waxaan kaga hadlaynaa siyaasadda ayaynu kaga hadlaynaa qeybta la xidhiidha siyaasadda. waxaanu ka hadlaynaa buuggan oo ku saleysan politicska oo inta badan ardayda jaamacaduhu ay qaataan ardayda fresh yearska. marka waxaan isku daynaa bal inaan ka hadalno maanta arrinta siyaasaddu maxay tahay iyo waxa lagu qeexo. marka buuggan baynu insha allah ka hadli doonaa haddii la yaro wixii ilaahay naga gaarsiiyo aynu ka helno. marka buuggan wuxuu leeyahay siyaasaddu waa maxay siyaasaddu. siyaasaddu macnayaal fara badan bay leedahay. Politics is exciting because people disagree. siyaasaddu waa la yaab sababtoo ah dadku waxay sameeyaan mandaaf, disagree, ikhtilaaf bay sameeyaan, way ismandaafaan, way is asraaraan, way iska hor yimaadaan, waxay sameeyaan wax aan iswaafaqsanayn, doodo iska soo horjeeda ayay sameeyaan. markaa siyaasaddu waa la yaab waayo bini aadanka ayaa saa sameynaya, disagreement sameynaya. They disagree about how they should live. waxay isku mandaafayaan ama isku khilaafayaan wax ku saleysan noloshooda ama sida ay u nool yihiin ayay isku khilaafayaan noloshooda. markaa khilaafkaas wax weeyaan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen iyo sidii ay uga hadlayeen ayay markaa isku mandaafayaan. Who should get what? waxay isku mandaafayaan waa kuma qofka waxaasi doonaya, musharaxaasi wuxuu doonayo ka kalena wuu kaga soo horjeedaa, way isku mandaafayaan. ama who should get what, qofkaasi waxa uu muxuu rabaa. How should power and other resources be distributed? siyaasaddu waxay ku saleysan tahay how should power, sida maamulka ama kursiga ama xukunka, and other resources iyo kaabayaasha kaleba be distributed loo qaybiyo ayay siyaasaddu ka saleysan tahay. sida kaabayaasha dhaqaalaha, biyaha, caafimaadka, sida loo gaarsiiyo ummadda ayaa la isku khilaafaa. Should society be based on cooperation or conflict? siyaasaddu waxay ku saleysan tahay inta badan labada arrimood oo ah in ay dadka ka dhexeeyaan cooperation, wax wada qabsi, iskaashi, midnimo, isku tanaasul. marna waxay ka hadashaa oo ay siyaasaddaasi bulshadaasi ama mujtamacaasi uu ku saleysan yahay waxaa loo yaqaano conflict. xasarooyin ayaa ka jira bulshadaasi, dhibaatooyin baa ka jira, dagaallo iyo dhiig qulqulaya, mashaakilaad badan iyo masiibooyin baa ka jira mujtamacaasi. marka waa society. siyaasaddu waxay ku saleysan tahay cooperation or conflict and so on iyo wixii kale la mid ah. They also disagree about how much matters should be resolved. waxay kaloo oo ay siyaasaddu laysku khilaafaa about how matters should be resolved, sida waxyaabaha loo xaliyo, arrimaha qaarkood sida loo xalinayo ayay isku khilaafaan. How should collective decision be made? siyaasaddu waxay ku saleysan tahay how sida should collective decision, go-aano wada jiri be made loo sameeyo, go-aano wada jira sida loo sameeyo oo iswaafaqsan. Who should have a say? siyaasaddu waxay kaloo ka hadashaa kuma waxaa sameeyey ama kuma waxaa yidhi ama kuma waxaa wada ayay ka hadashaa. How much influence should each person have? waxay kaloo ka hadashaa inta uu awood leeyahay ama influence ama ta'thiir uu leeyahay qof kasta uu leeyahay, aqoontiisa, waayo aragnimadiisa, waxyaab qabadkiisii ayay badanaa ayay siyaasaddu ka hadashaa. markaa qofka ama xukunka haya ama markaa doonaya in soo sharaxo kale and so forth iyo waxii kale la mid ah. Politics is above all. marka siyaasadda oo guud ahaan waxaasoo dhan aan nirahnaba waxay kusoo koobmaysa social activity weeyaan. waa bulshada iyo
dhaqdhaqaaqeeda, bulshada wadankaa ku nool ama halkaasi siday u socoto, siday u nool yihiin, qaab dhismoodkooda, qaab nolol maalmeedkooda ayay inta badan ku salaysan tahay. It is always a dialogue waxa weeyaan wada hadal iyo si tanaasul iyo wada ayay inta badan ka hadashaa. Never monologue, mana aha mid meel keliya ama qof keliya uu go-aan ka gaadho. Okay, marka waxaan eegaynaa qeexitaanka siyaasadda waa maxay. Maxaynu ku qeexaynaa siyaasadda? Defining politics. How to define politics, sidaanu qeexaynaa? Wuxuu leeyahay politics in its broadest sense, siyaasadda macnaheeda balaadhani, is the activity through which people make, waxa weeyaan howl maalmeedka ay dadku sameynayaan. Is activity waa hawsha ama waxqabadka through which people make, ay dadku ay markaa sameeyaan. Preserve, ay ilaaliyaan. And amend the general rules under which they live, iyo general ruleska shuruucda guud ay ku sameynayaan amend wax ka bedel, kaabid iyo wax ka bedel ay markaasi oo dee noloshooda u cuntunta ayay ku sameynayaan. Taasi siyaasaddu ka hadashaa. Although politics is also an academic subject, inkastoo siyaasaddu tahay laan cilmiya aqooneed, sometimes indicated by the use of politics with a capital B. Marka laan cilmi ahaan la baranayo P-da ayaa xarf weyna loo soo qaato. P-da weyn oo politics la yidhaahdo. It is then clearly the study of this activity. Marka siyaasaddu waxa weeyaan waa barashada, marka cilmi ahaan la eegayo waa barashada dhaqdhaqaaqyada ama howl maalmeedkaas bulshadu ay leedahay. And politics is inextricably linked to the phenomena of conflict and cooperation. Siyaasaddu sideedaba waxay la xidhiidhaa phenomenanka noqonaya conflict or cooperation. Waa labada phenomenkaas ayay inta badan daraasadeed ku salaysan tahay. Daraasadaas ay ku salaysan tahay waa bulsho markaasi conflict ku dhex jirta, masiibooyin iyo dagaal sokeeye iyo iska horimaadiyo fara badan ay ku dhex jirto ayay wax ka qortaa, wax ka hadashaa oo faaqida maaragta ay siyaasaddu ku xiran tahay. Ama cooperation, ama marka ay samaystaan midnimo iyo iskacan qabasho iyo wadajir iyo iskaashi ayay siyaasaddu ku xiran tahay, labadaas conflict ama cooperation. On the other hand, dhinaca kale, the existence of rival opinions, waxaa jira jiritaano maaragtay fikrado iska soo horjeeda ayay siyaasaddu badanaa eegtaa. siyaasadaha iska soo horjeeda different ones, baahiyada kala gedisan ama dalabyada kala gedisan, competing needs, tartamada baahiyeed ee kala gedisan, and opposing interests guarantee disagreement about the rules under which people live. Waxa ay siyaasaddu ku salaysan tahay jiritaanka fikradaha kala gedisan ee iska soo horjeeda, baahiyaha kala gedisan ee dadku ay ku kala doodayaan, interestyada iska soo horjeeda ama danaha gaarka ah iska soo horjeeda ee magaranaysa keenaya khilaafaadka ku salaysan sida wax loo xukumayo ama sida shuruucda loo ilaalinayo ee dadku ay leeyihiin ayay siyaasaddu inta badan ka hadashaa. On the other hand, sidoo kalena, people recognize that in order to influence these rules to ensure that they are upheld, they must work with others. Sidoo kalena siyaasaddu waxa ay recognize ku samaysaa ayay qiisataa in influenceyada shuruucda inay xaqiijiso oo markaasi magaranaysaa ayma sameeyaan wax la yidhaahdo gacan u taag ay u sameeyaan ama ay maxaan ku dhahdaa mooshinno ay sameeyaan si markaasi shuruucda loo xaqiijiyo iyo xeerarka markaasi ama
qaanuunka markaasi ay gacanta ku hayaan ay doonayaan inay far u taagaan ama ay joojiyaan ama mooshinno ay sameeyaan ayay inta badanna siyaasaddu lagu yaqiinsadaa, lagu xaqiiqsadaa, iyo inta taathiir ay leedahay shuruucdaasi sida loo fulinayo iyo sida loo joojinayo ayay inta badan ku xiran tahay. Intaasaynu kusoo koobaynaa. Waxaynu marka dambe eegi doonaa politics as the art of government, in siyaasaddu inay tahay sida maxaan ku idhahdaa farshaxanka dowladnimo. Siyaasaddu sidoo kale waa farshaxanka dowladnimada, ama maxaan ku idhahdaa ama siyaasaddu waa public affairs oo kale. Siyaasaddu waa public affairs. Arrimahaasaan geli doonaa insha allah. Marka intaasan ku joojinaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.